السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا تبتا توسن وولاشين داقة هدا ورينا لوتي جوجتو waxaan kulana ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay hadaad asxaabta inta nagu cusubad kamid tahay ma sha Allah aad baa ku soo dhawaanayna please waxaan iga codsanaynaa videoga intaana daawan subscribe noo saar subscribe-kiina waa noo muhiim ma sha Allah kulli maanta meeshan waxaan u fadhiyaa waa wax ka duwan wixii aad nooga barateen tacsi ayaan maanta u fadhinaa insha Allah inagana waxaan ilaahay kulli markaad videoga daawatiin labada qof ee maanta inaga baxay amba labada wiil ee walaalaha iyo wiilkooga saddexaad ee walaalkoodba inuu ilaahay dhamaantood u jannada ka wada waraabiyo waxaan neehaynaa qiso yar oo naxdin badan oo maanta markaan soo kacay saaka la kowsaday oo wallahi ilaa hadda madaxayga ka bixila saad ogtihiin ba dhacdo fool xun oo geeriya ayaa maanta ka dhacday dalka Mareykanka khaasatan gobolka Kansas waxaa dhacay labo wiil oo walaalo ah mid inuu jiray 14 midka kalena walaalkii oo ka weyn oo 16 sano jiray waxa maanta labada qof nafta kaga jaray amba yani u noqday sabab inay maanta geeriyoodaan walaalkood oo ka weyn oo 20 jira kulay waa naxdin amba waa dhacdo aad la yaabi doontiin dhamaantiinba markaa daawatiin laakiin insha Allah qof kasta oo videoga afro waxaan ka codsanayaa inuu faatixada u maro insha Allah inuu ilaahay inuu saddexdoodaba jannada uu ka waraabiyo waa maalin khayr qabta caawa waxaan bilaabi doonaa insha Allah 10kii dambe ee Ramadaan ugu dambeeyay horta insha Allah waxaan leenahay waa ahlu janno dhamaantood baa anaguna kala saaray laba acmaashooda waxay ku jireen acmaal wanaagsan oo loo bogay oo sheekhi dhanaaya quraanka masaajidka ku baraayay ayaa halkan ka amaanay oo dhageystay ma sha Allah wiilka walaalkoodna insha Allah waxaan leeyahay naxariista Allah ayuu ilaahay siin doonaa marka insha Allah bal hadaan faafiyo sida wax ku dhaceen waxa la yiri labadan dhalinyaro ee dhimatay yarka 14 jirka iyo 10 jira waxa la yiri xalay taraawiixda tukanayeen ay tujinayeen masaajid ku yaala xaafada ay degan yihiin ee Kansas oo masaajid at-taqwa la raahday ay labadooduba taraawiixda tukanayeen ilaahay u naxariisan leenahay ilaahay jannadaada ka waraabi dhalinyar soo koraysay haayeen waxa dishay qacan ka xaq daran kulli walaalkood baa dilay yani qofka markuu qof kala dilo waa laga samri karaayo dii qof cadowtinimo ugu ka caadili kara laakiin wallahi aan waxaan ka siinay markii la yiri walaalkood baa dilay marka ma sha Allah waxaan leeyahay kulli ilaahay baa labadoodan khayr ka karansiiyay walaalkoodna yani inuu ku yani naftiisa ay ku kadeedo inuu walaalihii dilo xumaan yani qofka insaanki uu galo xumaan ka weyn ma jirto qofku inuu qof kala dil u kula kaco كمان يعني دلكاسنا ونقض إنه ولالكي دلو سبحانه وتعالى وحلينا هاي ويلكاسنا إن شاء الله إلهي رحمة دي سهسيو كل دلنيرتا وحا وناكسن إن على الله سعودو كل يركا وحوما كخلدنا قف يوبي قف ولالكي أو خير إيو وناك دحجر إنه يعني ولكعو إنه دلو أنبا وحكو سمايو كل والله سببته وسبب إنك نجوين لكن كل إلهي هلك سبحانه وتعالى وحي نغطو سيا إنه الدومدي سكو دونا وهديو كي كلنا إلهي سبحانه وتعالى يسقى إسكاله إله وحنا دمان دليرتي دنوسو هذه إله وحن كابرينا إن شاء الله دعدا فوش حله أم باجيري دا نحدين تبضن له كي قرابة يكون عده وحن هلك نقدرنا باق لنا هاي سمري إيمان سيدا نسوق عده وحا نقوم قلها أم بان كده جيسنين وراركا إلى المهاس هو يدو دي أبهود أي هذا كهر دينتين الله ونحرسته أولاد خير قبل كتجين وأوصل دعينا ما شاء الله دعاء ودينين ولا هي قبرك كتوسو المها وحلي رمامة الدودو ده يا كمسؤول هاي ماشى يسوق قارين يو هالكا يونا جا يو دين تايفا فينيم بيدا سوق قارتي ساليري وحن ما أنت هالكا وقدرنا إن شاء الله إنه إلى هي إذا نسمري إيبان قصيو إلى آخر الجنة يكون كل ما نيدي اللي بدأ ويل كاس هذا ولا الكتب بينه وعن كريبين وحن إليه أصحابي فاتح هذا الله صامره إن شاء الله إلهي إنه صدح دودو وجنده وكل ميو walaalkoodna insha Allah iyaga wanaagay ku dhex jireen ilaahay ugu dambi dhaafay insha Allah intaan videoga xiga aan ku kulmi doono waxaan ilaahay asxaabi aad baad u mahadsantiin ma sha Allah videoga la share garee walaalaha waxaan ilaahay ma sha Allah Ramadaan Kariim kulli maalmo kooba Ramadaankeena hada insha Allah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh